gudniinka fircooniga ah wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo loo geysto gabadha inta ilaa maalinta ay dhalatay ilaa maalinta ay gaboobaysana dhibaatooyin la joogaya dhibaatooyinkaas oo ah xadgudubyaal lagu sameeyo xuquuqdeeda taasoo raali ka ahayn dhibaatooyin ku keenaya caafimaadkeeda jir ahaaneed iyo maskax ahaaneedba dhibaatooyinka jir ahaaneed oo ka soo gaaraya waa dhibaatooyinkaas waxay la soconayaan inta ay nooshahay dhibaatada kala weyn ay ku sababto gudniinka fircooniga ah gabdhaha ama uu kaga tago waxa kamid ah dhibaato ama caqabado ka soo gaara maskaxiyan taasoo ah walwal badan ay gabadhu la noolaato baqdin badan markasta ay xasuusato xilligii loo sameeyay falcelintaas ama xoogii iyo khasabkii iyo sakiimihii iyo dawo wixii loo isticmaalay taasoo ay keento baqdinahaas inay nolosheeda wax weyn soo gaarsiiso oo xitaa ay goob caafimaad tagi karin oo xitaa ay keento inaysan mar dambe qof ku kalsoonaan karin inuu xubinteeda waxyada anfacaya ku sameeyo waxa jirta wax yar aan doonay inaan la wadaago gabar yar oo timaaday maalin noogu timaaday cusbitaalka gabadha yarta ah dhibaatooyin badan bay wadatay oo loogu geystay gudniinka fircooniga ah dhibaatooyinkaas oo kamid ah inay kaadadu ka badaadanayso aysan dareemeynin markii aan isniraahnay xubinteeda fiiriya ama gabadha daryeel caafimaad u muujiya gabadhu waxayna tustay saaid inuu baqayso walwal badan waan la hadli kari weynay inanta yar way basasan tahay sas bay qaadaysaaba waqti badan kadib markii ay naga qaadatay inaan qancino markii dambe waxa dhacday in dhakhaatiirtii dhanba ay noo malayso inaan sakiimo faraha ku wadano oo ay gabadha yareed ay ku qaylinayso sakiinta iga daa iyadoo markasta arkaysa faraheena inaysan wax sakiina ku jirin ama wax dhibaato aan u geysanaynin gabdhaha dhantaalka iyo dhibaatada laga daayo xubnahooda tarankaana yaan looga sameynin wax dhibaato ku keenaya nolosheeda iyo nolosha ilmaheeda dambaba qoyska wuxuu ku hayaa dhaqaale daro oo waxa laga yaabaa inay bishii 2 jeer 3 jeer tagto xarumaha caafimaadka ay booqato iyadoo caafimaad ahaan u aadaysa waana wax diin xageedna aan ku fiicnayn laakiin bulshadu xoogaa anigu macallimadna waan ahaa iskuuladan ka bixin jiray iskuulka dadban iyo toosan baan ka soo waliba kan dadbanka baan dumarka ka wacyi gelin jiray sida hadeertan saacadaas wada jooga xaafadaha waxaan ka wacyi geliyaa inaysan gabdhaha dib u geysan oo aysan dhibaato ku dhicin haddaan arko gabar leey waa la gudayaan waxaan dhahaa sharci baa laga soo saaray waa la xirayaa gabadha isku gudina dhibkana ha u geysana dhibasko kale gabdhaha waxa loo gudaa sidii khatarta ahayd dhimashadu wajii jirtay wadamadii gaalada ahaa baa FGM markay arkeen sida hadda Ethiopia kale dadka waa gudan jiray Ethiopia fircoonka loo gudan jiray waxa lagu joojiyay wax ahayd cudurka FGM markuu yimid cudurada la kala qaaday inuu gudniinkii gabdhaha shan mindi lagooda gudaya jira waxa uu dhimanayaan dhibax waxa uu dhimanayaan teetano waxa uu dhimanayaan caabuq jirkooda ku dhaca sida aynu ognahay gudniinka fircooniga wuxuu lid ku yahay diinta islaamka wuxuuna xadgudub ku yahay xuquuqda qof kasta oo ama gabar kasta oo lagu sameeyo iyadoo jir ahaan loo waxyeeleynayo oo la jarjarayo mana aha kaliya waxyeelo ku kooban in qofkaas ama gabadhaas jir ahaan loo waxyeeleeyay waa dhibaato ay la dhutiyeyso ilaa dhamaadka nolosheeda xadgudubna ku ah xuquuq badan oo la xiriira caafimaadkeeda sharcigu waa awoodda kaliya ee aan gabdhaha yaryar kaga badbaadin karno gudniinka dhaqangalkiisuna waxa ay suurto gelin doontaa in waalidiinta iyo cid kasta oo ku shaqeysa ama ay la xiriirto socodsiinta hawlahaasi iyagoo ka cabsi qaba ciqaabta kaga imaan doonta sharcigaas ay gabi ahaanba ka waantoobaan dhibaatadaas gabdhaha yaryarka lagu hayo waxay sharciyadu qabtaa qofkii waxa weey in loo qisaaso gabadha dhinac la jara tii jirta inta loo qabto oo waxa weey gabdho loo adeegsado in ay dhinacii jaro adiguna haday macquul noqodeen 25 halaad oo diya ah waxa loo qaaday sharciyadu qabtaa waxa weey waa al-Imam Shaafici kitaabkiisa wuxuu gaarsiiyay jinaaya xad al-jinaayo gaarsiiyay dadka waa uga digaynaa waxa weey tolistan iyo qodbistan iyo rafaadintan waxa ka imaaneen dhibaato hooyadu waa warshad binaadka soo saarisay birka maalin markii gabadhu waxa weey waxa imaanaysaa heerkii ay gaadhay mustaqbal in waxa weeye aanay waxa weeye dhibaato kala kulanto hadii ilma caloosheeda Ilaahay galiyo wax loo socon ujeedku in ilma la dhoo
dad macaan dhasho in waxa way dhibaato ku dhacdo waxa macquul marka daba isu furan waxa dadka ku soo kordh waa dhibta waxa keenaya waxa wax ilaaliya waa ilaahay subhanahu wa ta'ala fallahu khayru hafidhan wa arhamur rahimin hadaa rabto gabadhaada inaad ilaaliso silica ku ilaalin inaad waxa way musbaar ka tagtagtee gabadha wax bar FGM ku runtii waa godob laga galay gabdhaha wuxuu godob ku yahay dhowrsanaanta iyo dhaqanka waa godob ay tahay in la cirib tiro wuxuu xadgudub ku yahay mustaqbalka gabdhaheena waxa muhiim ah in loo istaago sidii loo cirib tiri lahaa waa xadgudub ay tahay inaan loo eegin ama loogu mataqaanaa garaabin reer galbeed iyo xorriyadiisa waa arrin ay tahay in ay qirtaan oo ay ka dhiidhiyaan dhalin waayeel culimo iyo caamaba sidaa daraadeed waxaan ku baaqaynaa in gudniinka fircooniga la cirib tiro in gudniinka fircooniga la dagaalamo sidaa daraadeed waalidiinta waxaan ugu baaqayaa hooyo iyo aabe gabdhihiina ka ilaaliya gudniinka fircooniga waa halis runtii naafeeya qaybo kamid ah waaxyaha jirka ee gabdhaha